dalkeeniyo waalidkiina habeersado calanka dushiiniyo dalku waa idin sugayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada Soomaali Online Money Makers. maanta waxaan rabnaa inaan tusno maybe inaan sida loo gato backis iyo sidoo kale sida xayisiiska loo garaaco daily. sidaan sheegnay shirkaddan haddaadan daily aadan xayisiiska 24 hours ba aadan garaacin ma helisid faa'iidada maalinkaas. marka garaacistaasuna wax tiro badan maahan, wasake ma yar. waxaa laga rabaa 10 clicks inaad garaacdid maalin walba oo min 20 ilbiriqsiya. marka waa daqiiqada yar oo kooban. markaa soo gashay sidaa kuna hadda waa ujeedin aniga waxay la yiri iyo to serve 10 yesterday waa inaa weli aad garaacdid. marka hore waxaan ka bilaabaynaa sida adbacks loo gato. marka halka ayay ku dhufanaysaa purchase adbacks. markaa tiraahdo sidaan kale ay kusoo baxdo hoos ayay u soconaysaa. labada meelood ee kusoo baxaysa ayaa waxaa ku dhufanaysaa hoose ee purchase adbacks ah. ad clicks ma dhahaysid, midda hoos ayaad leedahay. marka ta u koraysa balantuuga ayaan waa 4 balan. marka ka koowaad waa soo xiray, ka labaad baa hadda wadaa oo 85% aan marayo. marka intaadan gadan wuxuu ku weydiinayaa 3 mar inaad 3 xayisiimood inaad garaacdid. marka waa ku qasbantahay 3 xayisiimood ayaa garaacaysaa. midba waa 10 ilbiriqsi. marka garaacdid mid walba go back to my account ayaa leedahay. marka tii u dambaysa ayaan hadda garaacaya. marka sidaas kale saddexda u wada garaacday ayuu ku geenayaa meesha aad ka dalban lahayd inaad wax gadatid. marka hadda ay kusoo baxaysaa purchase adback ayaad leedahay. marka aniga hadda waxaa la weydiinayaa membership-kayga ayaa dhacsanaa ma aanan ku baraarugsanayn. sida idin sheegay waa 4 lugood weeye oo ama 5 lugood aan dhahno oo boqol ah. marka laakiin qiimaha ayaa kala duwan. marka midda koowaad waa $5, ta ku xigta $10. ta koowaad membership malaha, ta ku xigta ayaa leh. marka daaris membership-ka la ii weydiinayo maanta ani ma ogeyn inuu iga dhacsanaan. marka halka ayaa ku dhufanaysaa u koreeya balantuuga. waa sidii hadda aniga ii maraysa, adiga kuma qasbanin inaad isku meel aan joogno. laakiin sidii memberka loo gadanayo generally waa iskaga saman yihiin. marka baysaha ayaan ku gadanaya, lama ogola lacagta website-ka aad faa'iidada ka dhex samaysa inaad ku gadatay membership-ka. waa inaa externally banaanka aad kasoo gadatay sida PayPal, Bayze iyo Bitcoin wixii aad marka isticmaashay inaad ku gadatay. marka Bayzahayga ayaan ku gadanaya. marka way isla shaqeeyaan. marka Bayze dalbatid isaga ayaa automatically ku soo baxaya. marka account-kayga Bayze aan ku geli lahaa iyo password-kiisa ayaan gelinayaa. waan geliyay. marka continue ayaan leeyahay. lacagta goosanayo $10 iyo 50 cent oo xawaalad ahaan uu iga goosanaya commission. meeshan transaction pin ayaa la weydiinayaa. marka shirkadaha online-ka wax loo gato si PayPal-ka, Bayze iyo wax walba way leeyihiin. marka waa xarfo yar oo aad samaysanaysid. marka 20 ilbiriqsi ayuu sugayaa. marka almost way dhamaatay. marka payment is successful. waa lacagtaada aad gadatay waa ku saxmantaa lagu yiri. marka hadda ayaan gadanayaa adbacks. marka sidii oo kale way iyaduna purchase adbacks ayaa leedahay. marka tirahdid ka labaad ayaan marayaa anigu oo 85 aan ka marayo boqolkiiba aan rabaa inaan buuxiyo. marka lacagta igu jirta ayaan ku gadanayaa commission-ka iyo earning balance-ka isku kay darsan waa kuwa ujeedin 100 iyo 12 iyo 105. marka waa 110. marka 12 ayay noqonaysaa oo halkii adback waa $10. marka waa ujeedin haddana successful ayay noqotay. marka 110kii sida ay ku goosteen. marka hadda waxaan idin tusaynaa sida loo sarf gareeyo. marka hadda waa ujeedin lacagta waa laga goostay. hadda ay halkaa ku jirtay 112 waa la goostay, 105 waa macnaha 7daas laga soo reebay. marka ta kale la hormariyay. marka hadda meeshan aad ujeedin waa meesha ugu muhiimsan oo aad faa'iido ka sameyn kartid. haddii aadan garaacin oo ay sidaa ka noqoto iyo to serve 10 today haddii lagu soo qoro markaas faa'iidadaada way joogsato waqtiga la joogo waxba kuma socdaan. marka iyada ku dhufanaysaa. waa 10 xayisiimood ayaa laga doonayaa oo 20 ilbiriqsiya. marka waxyaabaha isku eg ayaa ku soo baxaya. midka u horeeya ma ahani 4 kale ayaa wax ka dooranaysa mid asaga u eg. midka u horeeya kooban baa lagu gelinayaa. mid kale u eg baa ku dhex jira 4 sawir kale. marka hadda calaamada music oo kale mid kale oo music aan ka dhex raadinaya. marka laba kale isku eg kuma jirto, hal mid baa mar walba ku jira. midda waxa yare giftiga camal oo kale. waa ujeedin hadda meesha casaanka idin saaray inta mar ayaan ku dhuftay 3 mar oo kale. hadhow markaan wax dhan wada dhameeyo 10 bay noqonaysaa. marka hadda 10kan waa wada garaacaya anigu. marka waa ujeedin hadda waxa yar microphone-ka la weydiinaya. waa kaas kiisi iyo mid asagii oo kale.
marka sidaas ayaa u wadaysaa wax dhan ilaa aad ka dhamaysid. marka waxyaabahan shirkada ayaa wax ku xayeysiisanaya oo xayeysiimadu aad ka fiirsanaysid. marka shirkadan waxyaabaha ay ka samayso lacagtaaba waxay tahay inay xayeysiimaha ay shirkadaha ay soo samaysanayaan dadka ay gaarsiiyaan. marka anaguna dadkaas ayaan ka midnahay, xayeysiimahaas ayaan fiirsanaynaa. marka sidaas ayaa shirkadaha lacag looga qaadaya. lacagtii baa markaas anaga iyo shirkada dadka ka qoran ay wadaagayaan faa'iidada kasoo baxda. marka wax dhan aad wada dhamaysid waa kaas halkaas ayuu keenaya. hadda horta halkaa check waa saari kartaa. hadda ujeedin 10kiiba waa wada dhameeyey. marka go back to my account ayaa leeyahay inaad saartid muhiim maaha check. marka hadda waa ujeedin you on free surf you on surf free mode ayaa ku jirta ayaa lagu yiri. hadda 23 saac iyo 59 daqiiqo ay dhiman, macnaha 24 saac ay hartay. waqtigiisa kale ayaa laga doonayaa inaan maalin walba saa u garaaco. marka halkaas ayaan ku ekeenaynaa sharxadan ku saabsaneed maybe inaadis. aad baa u mahadsantiin. salaamu calaykum.